asalaamu calaykum asxaabta soo dhowaada. Ninkii madaxweyne Trump ahaa caawa waxba ma uusan u reeban dalkeennii Soomaaliya iyo weliba Ilhaan Cumar. Caradan uu kala dul dhacay waddankeennii Soomaaliya Ilhaan Cumar horta maxaa sababay? Waxaa jirtay in ninkii Trump saaxiibkii ahaa ee wiilkii dhallinyarada ah ee Charlie Kirk markii la dilay Arbacadii hore, Ilhaan Cumar ayaa waxay wareysi siisay nin Islaam ah oo la yiraahdo Mahdi Xasan, isla markaana iska leh bar la yiraahdo Zateyo. Marka arrinta ninkaas iyadoo ka hadlaysay ayaa si sarbeeba waxay u tiri ninkaasi markiisii horeba nin micnaha sheekh masaajid ku jira ma uusan ahayn oo isaguba nacayb ayuu faafinayay. Arrintaasi ayaa markaa dhinaca midigta fog ay qaadeen ay yiraahdeen Ilhaan Cumar si qaldan ayay wax uga sheegtay ninkii la dilay ee Charlie Kirk. Taasi waxay sababtay marka in haweeney xildhibaanada oo laga soo doorto gobolka South Carolina oo la yiraahdo Nancy Mace ay mooshin geyso aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka oo ay tiraahdo Ilhaan Cumar gudiyada ay ku jirto waa in laga saaraa maadaama ay sidaas uga hadashay ninkii dhintay ee Charlie Kirk. Ninkaasi dad badan ayaa shaqada looga celiyo, dhaqaatiir, duuliyaal diyaarada iyo xitaa kuwa militariga ku jiray oo la yiri sideedba ninkaasi war xunaad uga sheegi kartaa. Dad fara badan shaqadoodii ku waayay oo hadda qaarkood maxkamada tagay. Markii mooshinkii Arbacadii daraad ahayd la horgeeyay aqalka wakiilada, mooshinkii waa uu guuldareystay. 214 xubnood oo Republican ah ayaa u codeysay, 213 waa ay ka soo horjeesteen, marka 218 ina wala ahayd. 2 xubnood oo Republican iyo 3 Dimuqraadiyiin iyagu way ka aamuseen, ma aysan codeynin. 4 Republican ayaa Dimuqraadiyiinta ku raacay mooshinkaasi oo yiri mooshinkaasi wax jira ma aha. 4taas Republican-kana waxaa laga soo kala doortaa gobolada Colorado, Nebraska, California iyo weliba Florida. Marka mooshinkii markii uu guuldareystay kadib, Ilhaan Cumar 2 guddi ayay ku jirtaa, guddiga waxbarashada iyo shaqada iyo guddiga miisaaniyadda ku jirta. Marka waxaa la doonayay in labadaasi guddi laga saaro. 2023 waxaa jiray in guddigii xiriirka arrimaha dibadda laga saaray kadib markii Yahuudda ay wax ka sheegtay oo guddigaasi horay ayaa looga saaray, haddana kuwa kale ay ku jirto ayaa la doonayay in laga saaro. Marka mooshinkii waa guuldareystay oo xubnihii aqalka wakiilada ah xubno Republican ah oo 4 ayaa badbaadiyay Ilhaan Cumar. Marka ninkii Trump ahaa safar ayuu ku joogay waddanka Ingiriiska isagoo hawada ku soo jira oo weliba aan Mareykanka soo gaarin ayuu qoraalkan soo qoray marka oo Soomaaliyana ku caynayo, Ilhaan Cumarna uu si asaguna ku caynayo. Waxaan ognahay Ilhaan Cumar iyo weliba Trump dagaalkoodu ku dhawaad muddo 10 sano ayuu socdo, 4 sano hore madaxweynaha ahaa xitaa sidan ayuu Ilhaan Cumar u daba taagnaa ninka Trump. Qoraalka marka wuxuu ku bilaabay Ilhaan Cumar wuxuu yiri waddankeedii Soomaaliya waxaa la degay, wuxuu yiri ma ka jirto horta dawlad dhexe oo waddanka maamusha kama jirto ayuu yiri. Waxaa ka jirto yiri faqiirtinimo baahday, gaajo iyo sidoo kalena argagixiso, burcadbadeednimo iyo dagaallo muddo socday oo dagaallo sokeeye oo kuma sanado socday, musuqmaasuq iyo sidoo kalena qalalaaso iyaguna aan joogsi lahayn. 70% shacabka ku nool wuxuu yiri waddanka Soomaaliya waxa ay ku nool yihiin faqiirtinimo iyo sidoo kalena in ay jirto cunno yari aad u baahsan. Soomaaliya wuxuu yiri mar kastaba waxa ay ka mid tahay wadamada ugu hooseeya dhinaca musuqmaasuqa, sida wuxuu yiri waxa ka mid ah laaluush bixinta, wax isdabamarinta, dawlad aan shaqaynaynin. Dhammaanba waxyaabahaasi Ilhaan iyadoo waddankeedii ay ka jiraan ayaa waxay doonaysaa inay noo sheegto sida waddankeena Mareykanka aan u maamulayno. Marka ninkii Trump ahaa Ilhaan waxba ma uusan u reebanin. Sidoo kalena waxa uu sii raaciyay iyadoo sidoo kale walaalkeed guursatay si ay dhalashada Mareykanka u hesho. Ilhaan Cumar sida Soomaalidu ay sameeyaan waxaa lagu eedeynayay in walaalkeed ay waddanka ku keentay waa ninkeyga. Marka arrintii ayuu marka la tiigsanaya, wuxuu leeyahay walaalkeed ayay guursatay sida dhalashada Mareykanka ay u hesho. Marka wuxuu yiri alla maxaan wasaq waddankeena aan ku haysana. Waa sida adag qoraalkiisu uu qoran yahay. Waxa uu sidoo kale sii raaciyay waxa ay noo sheegaysaa ayuu yiri waxa aan sameynayno oo waddankeena aan ka sameynayno iyo sida aan u sameynayno. Marka waa ku mahadsantihiin sida arrintan aad dareenka aad u siiseen. Make America Great Again uu ku soo gabagabay. Marka ninkii Trump ahaa isagoo ka careysan Ilhaan maxaa gudiyadii looga saari waayay maadaama Congress-kii cod mooshinkii u guuldareystay ayaa wadankii Soomaaliya oo dhulka la galay
Ilhaan Cumarna uu dhulka la galay. Marka Ilhaan ilaa hadda ma aysan ka soo jawaabin. Kolley waan arki doonaa iyaduna haddii ay ka soo jawaabto. Aad iyo aad u mahadsantihiin asxaabta.